casrigan dambe dadku jiman iyo il iyo maxaa la yidhaahdaa sixir iyo wax jiman ku saabsan iyo shayaatiin bay tilmaamaan. ilaahay xuskiisa haddaad badiso culimmadu waxay leeyihin waa xaqiiqa xataa hadduu ku gala inuu kaa baxayo, laakiin dadkaan laazimin maalin iyo laba waxoogaa ka dhagdhagsiinaya deetana uu iska daynaya. kullamaa xuskaagu sii bataba shaydaanka bucfigiisaa badanaya, adkaysigiisaa yaraanaya. hadduu maarid kasta ahaa bay culammadu yidhaahdaan ilaahay dikrigiisaa kaxeeya. haddaad qur-aanka iyo salliga nebiga iyo laa ilaaha illa allah badsato kuwaasaa kaa kaxaynaya. innagu aw hebel u tag iyo aw hebel u tag baa madaxeenna ka buuxa, laakiin ilaahay ku xidhan way ku yartayba. si awgeed nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiidka imaamu muslim soo saaray, qofku markuu gurigiisa soo galo hadduu ilaahay xuso marka uu guriga gelayo iyo marka uu cunada cunayaba, shaydaankaa wuxuu yidhaahdaa laa mabiita lakum walaa cashaa. halkan hooyaatin iyo cunatoona ma taallo. haddaanu se qofku markuu guriga gelaya ilaahay xusin, shaydaanku wuxuu yidhaahdaa waa soo gaadhnay, waa soo haleelnay, deganaanshiyo hooyaatin iyo cunaba waa hellay buu yidhaahdaa. almabiit walcashaa labadaba waa hellay. maxaa inaad shaydaanka iska erida ku filan bismillah inaad tidhaahdo markaad gurigaaga gelayso, cunada markaad cunayso inaad bismillah tidhaahdo. bale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiidka saxiixa ee abu daawuud iyo nasaa'i iyo keyrkood ba wariyeen, qofku markuu gurigiisa ka baxayo hadduu yidhaahdo bismillaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah, waa saddex erayo kooban. bismillaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah. waxaa loo yidhaahdaa qofkaasi oo la yidhaahdaa xasbuk qad kufiita wahudiita wawuqiita. waa xasbuk baa la yidhaahdaa, niyow ama gabadhiyay waa lagugu filaaday oo waa lagu hanuuniyey oo waa lagu ilaaliyey baa la yidhahdaa intaa haddaad la timaado. shaydaankuna markay kulmaan shaydaanka kale wuxuu ku yidhaahdaa kayfa laka birajulin qad kufiya wahudiya wawuqiya. sideed shaqo uga qaban kartaa nin lagu filaaday, xagga rabbi lagaga filaaday oo la hanuuniyey oo la ilaaliyey. idan insurance ma rabta haddaad gurigaaga ka baxda balaayooyinka in alla ku dhaafiyo. intan dhabuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. ayuha alaxiba, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo leeyahay ma jiro camal bini aadamku uu qabto looga rajo badan yahay inuu ilaahay cadaabkiisa kaa ilaaliyo dikrullahi. maa camila aadamiyun camalan anjaa lahu min cadaabi illahi min dikri illah. qofka bini aadamkii ma sameeyo camalka ugu fiicane cadaabkaa dhowraa. adduunka haddii lagugu ilaaliyey, aakhirana waxa ugu fiicane lagugu ilaalinaya waa ilaahay xuskiisa. ayuha alaxiba, ilaahay xuskiisa aad badsataa waxaad kaga mashquulaysaa laqwiga iyo maxaa la yidhi iyo wax kale. bini aadamku markuu isu yimaado sheekuu bilaabaa iyo maxaa la yidhi iyo kan iyo maxaa la yidhi. macnaheedu waa maxay? waa dikru naas. dad baad xusaysaa. reer hebel baa duulay, qolo kala caynkan yeeshay, siyaasi hebel baa kan yidhi, heblaayaa waxaan samaysay. bini aadam baad xusaysaa halkaad ilaahay ka xusi lahayd. haddaad ilaahay xuskiisa badsato dadka xuskoodaad ilaabaysaa. waxaad kaga mashquulaysaa inaad dadkaba wax ka sheegto. laa mid madaxa walaa mid saaxiiba walaa mid ku dhow walaa mid aa coltihiin, wax sheegoodaba waxaad kaga maarmaysaa inaad ilaahay xusto. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum cani illagwi mucriduun. sifaadka la isku xidhay waxaa ka mid ah salaada in lagu khushuuco, ilaahay dikrigiisu uu dhadhan kuu yeesho, iyo laqwiga inaad ka jeesanayso. ساوغيد با إلهي وحنا لي وقت كست ذكري إلهي بدي حتى مركز صلاة كبحضة. فإذا قضيتم مناسككم با إلهي مناسكتي نيو عباداتي نمركز لما يستان وحجكي فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد الذكرى. عربتي الجاهلية وها عادي هاي مركز حجاني حج كان لما أيان أي قبائل كي يرى ويسفاني كيرين
dabeetana qolo waliba waxay ka warrami jirtay reerkooda inta nin magaca leh ama waxaan ku jirta ama gabayadooda ama waxaas cid waliba aabbayaashood bay tirin jirtay hadday carabtii jaahiliyadii saa samayn jirtay dee soomaaliduna way samaysaa cid waliba reerahooda reeraha iyaga kale ka adka iyo caynkan baanu ahaan jirnay reerkiina faankiisaad wadaa ilaahay wuxuu yidhi fadkuru llaha ka dikrikum aaba'akum sida reerihiina u sheegtaan ama si ka badan ilaahay u sheega baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala waa markii xajka laga baxay salaada marka la dhameeya ilaahay wuxuu yidhi فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم والصلاة مركا لما يسان بها إلهي سبحانه وتعالى حق ستقع لكن ها إلا بنا إلهي حسكي سآب حصة أدو شقك لك بني إلهي آب حص ضدك الصالحين تاوحا لك شيء الشيخ أبو حكور ربي هو يدي hooyaday marka ay raashinka karinayso waxay ku qiyaasan jirtay wardigeeda waxay tidhahdaa shaygaasi wuxuu ku bislaadaa kun subxaanallah kaasina wuxuu ku bislaadaa 2,000 oo laa ilaaha illa allah macnaheedu waa maxay halkaad imanka ka tidhaahdaan microwave-ka ku shid ama maxaa la yidhaahdaa ovenka shid 20 daqiiqaha ku jiro ayay iyadu wardi tirinaysay waxay leedahay markaad 2,000 goor laa ilaaha illa allah tidhaahdo shaygu bislaada idan waxay karinaysay bay waxay garatay inay uga dhigto miqyaaska lagu qiyaasayo wardiga inta ay akhri karto waxay culimadu yidhaahdaan culimada badhba waxay odhan jireen safarkiisa wuxuu ku qiyaasi jiray qur-aanka uu akhriyo meel heblaayo intaan 4 jis akhriyaa baan ku gaadhaa buu yidhaahdaa يعني waxa uu miqyaasa halkeen inagu ka nidhaano saacad baa lagu gaadhaa ama nus saac lagu gaadhaa wuxuu leeyahay 4 jis baa kugu filan marka inta sii socota 4 jis baad akhriyaysaa meeshii baad gaadhaysaa buu leeyahay dadka kale marka waxa ka muuqda ilaahay dikrigiisu sidoo qiimo ugu samaynayo ilaa ay masaafaadka iyo zamanka iyo wax walba qiyaas uga dhigteen wardiga ay wardinayaan وكو إلهي مركا لي هذا سلاتك كتان أما مناسكتين لما يستان أما كان سمايسان إلهي حسكي سوضا هذا فردان يا هذا سرجوك تاني يا هذا محي شيفتان بالسماية أيها الأحبة عكس كذا إلهي وحط المامية قسوة القلب يا إلهي ذكر يسوس مال مقالة ذكر يا إلهي هذا قلبي أدق اسكدر يتو وردك بتصو إلهي حسكي سبتصو قلبك وجلعيها فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وإلهي سبحانه وتعالى سوى قلبي علماء الوحيد هذا ذكر الله تعالى دواء وذكر الناس داء بين هذا إلهي حسكي سنوى دو نفتي ينرش بالدوية آخرة بناء آدم كشيك سنوى وحنون أيها الأحبة وحبضن بدن با إلهي حسكي سكو حرا إلهي حسكي سوحو كان نعمدنا إن لهله نقمضة نبتنا إن لفيده إلهي حسكي ساكانا الأنس مع الله أيو كان إن الإلهي وهشته أيو كان إلهي سبحانه وتعالى ذكر يسو ساو قد قف كستو إلهي ذكر يسو بتصدع noloshaa dhandhan iyo macaan u samaysa waayo isagaa wax walba uu arkaa inuu yahay muftaaxu kullu shay innaga markaynu xanuunsanno waxay ugu horreeya madaxeenna ku soo dhaca waa dhakhtar inaynu raadino haddii dhibaato dhaqaale ku qabsato waxa ugu horreeya maskaxdaada ku soo dhaca waa asxaabtaa iyo qaraabadaadii iyo dadkii waxaystay ما هو يلا والله هذا شر ما ذاك والله هذا شر ما أباه والله ما ينادى مد وحيستو غير كميدا إن المركبة هذا مشكلة النقالة هبل ولطن لكن وحكوه الرئيسة وحكى ستور دي بوكو قبصتين الحق إلهي لقبطه حق إلهي لقبطانا وإن دون سقاط حسطة إلهي محولي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نبي الله نوح حكولي تركي
ولله استغفارتي سأقولك علي وبتصد إلهي ومدن بيقى نافين هداد استغفارتا بتصدان بولي عرقا روب شوكتا الله ينكسينيا وحكا له إلهي إذن كنت داقيا حوله إيا عروريا وحاوبا هنتين بإلهي وادي السينيا حقاد وحاكي هليسا سبب وحوقا لغير إلهي ونستغفارتي سألبت صدو الله توبت كيرو وحاو النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام حديث كما الصحيحة أبي بن كعب صحابي اللي ورنجري أيها وحولي إلهي النبي جيبه كله إلهي رسول كيسيو صلي أنا ديك أكو صليو وأنت رب ضياي إمي سان كديكا نبي وحولي عليه الصلاة والسلام أنت عدو تكديو وحولي ربع مكديكا يعني الدعاء دي وحي قولنا ربع كميدا أفر ميلودو من كواتا أديك مكديكا صلي نبي وحولي عليه الصلاة والسلام أنت عدو تكديو هذا ككور لسا أنت أنا خير بكو زيادة markaasuu yidhi haddaan nus baan ka dhigi markaasuu nebigu ku yidhi intaad doonto ka dhigi haddaad ka siyaadiso nuskaana khayr baa kuu kordhi markaasuu yidhi haddaan 3 meelood oo 2 meelood baan ka dhigi markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad ka siyaadisana khayr baa kuu kordhi markaasuu ku yidhi haddaad ducadayda oo dhanba salliga nebigaa ka dhigaya markaasuu nebigu wuxuu ugu jawaabay idan tukfaa hammak ويغفر لك ذنبك وروركاغا والله فيلان بو نبي عليه الصلاه والسلام دبيغاغنا والله نافي صليغا انه نبي كو صلي انه عليه الصلاه والسلام او اد بطسطا وحو نبي تلماميا انه كانسنايو ان وروركاغا لغاغا فيلانيو الهي كاغا فيلانيو وحو كلو كانسنايا با ليدين دبيغاغا الله كو دافا سبحانه وتعالى وصلي النبي عليه الصلاة والسلام إن بدل صلينا يسوع معني شو هوي يعني إلهي أما النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المام قفدو وناقدين السماء هو أبا الجدة هداد واحد هو أبا الجدة وإذا نقول دعاء يبقى ليرى أمانة نبي أبا البنولة يتربضا لدين نرى نبي نسوق عرسي سكلا إنه هو أبا الجدة ما شرته إنه إلهي وبرنا موياني إلهي بريدي سمركا إنك وحكور راديننا إنك وحتر ينوطهي وحترك ينوطهي وحكم يبو النبي عليه الصلاة والسلام مركاسي إن محي إنه كهل إنه شكر النقا إنه الله نمي إنه كهل إنه إن همي إن الله سبحانه وتعالى ترتره وحين ورور قليني دي مشكلة هو غبصتها لك فريسو أنت تصبح على غلطه سلق النبي تربطه كمامكم كصلي warwarkaagaasi wuu kaa baaba'aya dembigaagana waa la dhaafayaa baa la yidhi ilaahay qur-aanka wuxuu u tilmaamay ambiyo badanna inoogaga warramaya mashaakil qabsaday oo xal looga dhigay inay ilaahay dikrigiisa badsadaan waa mashaakil adduunyo ka aakhirana xal buu yahay mashaakilka adduunyo xalka uu yahay maxaa ka mid ah ilaahay xuskiisu waxaa ka mid ah diiqu sadr عديدي انت بدل بني ادم كعديدي نفط قرمة الماء نين شيخ وحكا مقلي مهما صوماليادو ترى هذا بيولي دنقدو اما اشو ويقا بودا اريو سيما قلوه بيولي يعني هديم قول له نفطو ان يركدي بحنوك وكابايا لكن هدي له ماغا اما له عايو هرو كاغا ما بايو مدة نفط حقانيسا waxbaa lagaa sheegay iyo waa lagu maagayo cidba wax ku tuli iyo magacaaga hoos loo dhigay iyo waa naftu wax iska celiya waxbay kugu akhriyaysaa tiro badan leh marka xoqashadeedu hore uma qabowda bay Soomaalidu tiraahda ilaahay wuxuu quraanka ku leeyahay nabi maxamed waa la caayay waa la maagay waa sixroole la yidhi waa isagoo xaq sheegaya ilaahay markaa muxuu yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi laabtaadu inay cidhiirtoomayso waxay kugula hadlayaan daraaddeed haddii nebi maxamed baa cidhiidhi dareemayo dadka kalena maxaad u malay waa un dadka qof markiiba jawaabta bixiya iyo qof isku daya inuu cadhadiisa qarsado oo ilaahay ajar kaga raadiyo saa daraaddeed nabiyullaahi maxamed ilaahay wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ognahay
laabtaadu inay cidhiidhiyoomayso waxa ay dadku kugula hadlayaan daraaddeed iyo cayd iyo maagga ay kugu wadaan. ilaahay muxuu dawo uga dhigay markaa? laab cidhiidhigan waxaa ka habiinaya saddexdaa shayga samee baa layidhi. midi waa fasabbix bixamdi rabbik, ilaahay u tasbiixso subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim iyo wixii la mida badso. wakun min asaajidiin baa layidhi, salaadana badso, kuwa ilaahay u sujuudana ka mid noqo. wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin baa layidhi, cibaadadaada kalena badi intaad ilaahay kala kulmayso. idan inaad tasbiixsato oo salaad tukato oo cibaadaadka badsataa waxay dawo ka tahay cidhiidhiga qalbiga gala. cidhiidhiga qalbiga galay dawo ka tahay. waxay dawo ka tahay dhibaatada kale muuqatee kugu dhacda. ilaahay wuxuu inooga warramay nebi dannuun la yidhaahdo, nabiyullaahi yuunus. waxaa la ka warramay nebi yuunus in baddu liqday, doon laga tuuray, baddu liqday, haddana xuut halkan maxaa la yidhaha nimiri uu sii liqay, nimiri afkii uu galay. intaas oo mugdi isagoo ku jira ayaa ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala fanaadaa fi ulumaat an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min alaalimiin. halkaasuu ka dhawaaqay baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala isagoo leh laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min alaalimiin. ilaahayow cid xaq lagu caabudoo kale ma jirto adiga mooyaane, adaa xuma ka hufan oo kuu tasbiixsanaya, aniguna daalim baan ahay buu ku dhawaaqa. ilaahay wuxuu ugu jawaabay fastajabnaa lahu wanajaynaahu min algham wakadalika nunji lmu'miniin. waa ka aqbalay baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala baryadiisii iyo ducadiisii, waananu badbaadinay. markaa ma nebi yuunus bay ku koobantay? maya, ilaahay wuxuu yihi wakadalika nunji lmu'miniin. nebi yuunus wixii qam iyo warwar haystay iyo dhibtii haysatay uu badda ku jiray waanu badbaadinay baa ilaahay yidhi. dabadaa loo soo tufay, xeebtaa la keenay, dabeetana geed baa ilaahay u beeray yaqtiin la yidhaahdo. bocorka kanaad tidhaahdaan, bocorku waa antibiotic. bocorka iyo bakteriyaadka iyo duqsiga iyo waxaas isku meel ma yimaadaan. kaas baa loo beeray, isagoo duubdhacsadaa kaa hadduu ismariyo khalaas waa bogsaday, uma baahna wax kale. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waa ka aqbalo waa la badbaadiyey. waayo falowlaa annahu kaana min almusabbixiin baa ilaahay yidhi lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun. haddii aanu ka mid ahayn kuwii tasbiixda badsan jiray ee in badan ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqi jiray, tasbiixsan jiray, cibaadaysan jiray, tukan jiray, haddaanu kuwa ka mid ahayn baa ilaahay yidhi mashkiladaa uu ku jiri lahaa. mashkiladda maxaa ka saaray? waxaa ka saaray wardigiisii iyo dikrigiisii. mashkiladda ku qabsatay markaa xalkeeda waxaa ka mida ilaahay dikrigiisa. cabsida aad cid ka baqayso waxaa ka mida xalkeeda ilaahay dikrigiisa. oo ninkii dunida aan odhan karno wuu u kibir badnaa, oo boqortooyo laga baqa buu ahaa, oo dadka laynaya, oo dhib oo dhan geysanaya qur-aanku ka warramay ee taariikhda bini aadamka. fircoon buu ahaa, ilaahay fircoon buu ka warramayo wuxuu dhib dadka ku hayay. nebi muuse iyo nebiyullaahi haaruun baa loo diray. nebi muuse wuxuu tilmaamay inuu ka cabsi qabo ninkan inuu dhib u geysto. xalka la siiyey markaa muxuu ahaa? ilaahay wuxuu ku yidhi idhab anta wa akhuuka biaayaati walaa taniya fii dikrii baa ilaahay yidhi. adiga iyo walaalkaa taga, oo rasuul baa tiinay nebiga u taga. idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa baa ilaahay yidhi. fircoon waa kibray weliba waa xadgudbaya u taga. fircoonkaa laga baqayo ayaa la yidhi waajah. maxaa u ah markaa wuu isku ilaalinaya? ilaahay wuxuu yidhi walaa taniya fii dikri, aniga xuskaygun ha ka noogin, ha ka daalin. fircoon waxba kuguma samayn karayo haddaad maxay inanii asmac wa araa baa ilaahay u tilmaamay. anaa dunida maamula baa ilaahay leeyahay, aniguni qabso oo xuska badi. xuska badi. waqti aan fogeyn baa nin sheekh iyo warramay 3 nin iyagoo abaa gardarro lagu qabtay, dabeetana xabsiyada adag xabsi ka mida lagu xidhay.
wuxuu yidhi qur-aan baanu akhrinay tiro badan marka ninka mida nimankii baa wuxuu yidhi waryaane qur-aanka haddaan akhrino waan bixi karaynaa jeelkaasi may raacaysaa waan yara shakiyey buu yidhi waxaan yidhi adigu bal tijaabi qur-aan badan intuu akhriyun buu iska baxay buu yidhi albaabkaa laga furay kii labaad baa yidhi buu yidhi waar isba ku baxyeennana waa akhriyayna qur-aan badan oo kale aanu akhrinay buu yidhi dabeetana kii labaadna uu iska tegay buu yidhi uu iska baxay ninka ii warramaya waa ka saddexaad marka anigu waan yara shakiyayaa buu yidhi kolba waxaa isleeyahay war nimankii meeshan adag kugu xidhay hadday ku qabtaan waa ku garaacayaan haddane waasna markii dambaan sidhi buu yidhi war labadii kaa horreeyey waa ku baxee mahadadna tijaabisi waa waday buu yidhi wado ana albaabka ka soo boday buu iska soo baxay oo adigu saad u baxdaan weydiiyey kuwa kale maad arkaynin albaabka markaan marayaa mid igu yidhi buu yidhi miyaad sala tagaysaa markaasaan ku yidhi buu yidhi haa dabeetana uu ii baneeyey buu yidhi oo iska dhaafa ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa haddaad badsato nabadgelye iyada kugu filan laakiin inta badan dadku way hilmaamaan sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa dagaalada gelaya mujaahidiinta ah war dagaalamoo sugma baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay xuskiisa badsada ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu allaha kaiiran lacalakum tuflixuun war kuwa iimaanka laga helayo haddaad la kulantaan fi'a koox haddaa ishaleeshaan horta ha cararin ee sugma baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gaala haddaad la kulantaan oo dagaal ay tahay sugmo ha cararina maxay kala sameeya baa ilaahay yidhi fadkuruu allaha kaiiran lacalakum tuflixuun ilaahay xuskiisana badsada waxay mudan tihiin inaad guulaysataan baa ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay xuskiisa deganaashiya naxariis baa lagu helaa siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi duul meel ma fadhiistaan iyagoo ilaahay xusaya ilaa iyo malaa'igtaa isku weegaarta oo ilaahay naxariistiisaa daboosha oo xasillooni baa ilaahay ku soo dejiya oo rabbi baa kuwa agtiisa joogee malaa'igtaa uga warrama waxaas oo nicmo ah maxaa lagu helaya marka xuska ilaahay dhab inaga yihi aynu si dhaba ilaahay u xusayno subxaana wa tacaala cagsigeeda wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul meel ma fadhiistaan iyagoona ilaahay xusaynin ilaa iyo nuqsaan bay ku noqotaa ilaa kaana calayhim tiradu waa naqs walan yatirakum acmaalakum يعني ونقصان بيكون نقطة قف مجرب النبي عليه الصلاة والسلام رجل مشى طريقا قف ودمري وأن إلهي حسن إلا كان عليه ترة وما من رجل آوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة نبي وحد المامي عليه الصلاة والسلام قف فريستي يقف سعطاه يقف جيف سنية وأن إلهي حسن هدو جربون نقصان بيكون طهيب النبي عليه الصلاة والسلام أجرك أكا نقصان إلى لنتي حريستي وحي اللي هلا يبقى نقصان وحي وناقة نصوصته يتلمامتي وربك نقصان سيداوغي ما لنت قيامة بالليل مال جلسة دكي صوفر استيان نبينا كسلين إلهنا حسنين إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة دول مال انت يسوي ما دام ورك لهم أخريانية وأنا إلهي بالشيقين إلهي سيدي بخت الدمير دول كدول كعيبين نقضى بلد المام عن مثل جيفة حمار أيها الأحبة ساعات كستو دوني إن صومرتو إن إلهي حسني خسارة آخرين وطيبين الدنيا على الأقل وحو نبقى ينوت المامي عليه الصلاة والسلام هدي مجلس كأنه فردنا وحوغا لغوي بينك دعدعان marka u dambaysa inuu ka hayno hadaynu nidhaahno subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ilahi wixii majliska dambi naga dhacay wayno dhaafaya ala aqal markaynu sii ka hayno hadaynu ilahi xusno wixii aynu qasnay ee dhibay naga dhacay waa la inaga dhaafaya
أيها الأحبة مركا إلهي حسكيسة أدوك نوى لقول ليبانا آخر نوى لقول ليبانا سنحب قولها أيضا وحكونا النوبة قرآن قصار أحاديث أن كتر يرين وكنا النوبة صار جلسكم أن ما ينكرنا فإذا قصار ما حديث ما آيات القرآن قصار جلسكم أن ما ينكرنا هدين كتقنا بها للقلم لكن إلهي وحين إليه سبحانه وتعالى وحتى هداد عدوهم لصاحب سام الراعس هو إلهي حصل راعة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ما إلهي هاتيعي وصاحبها كان يغني نوها الله سعني ووركيسها قالا هو قلبي قول إلهي حسكيسة غافل كوكي نفتو دو واحد دونتا يسكر راعي مركا يالو قولي راع هو إلهي حسكيسة وايو لا يشقى بهم جليسهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وكي حديث كان النبي قلت المامي ملائك صعتا جرته وديدي سب المجلس إلهي لغو يوم إلهي لغو حصتي مادا وحانو نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام حتى كيسكيمي أنا سوي كتشرين داد كان إلهي حصي وانا قد غيسنا يي مكا كاكعان إلهي وحنا دمان تود ورودنا بدافع كسا ملاكتو ترادا مد با كتشران سوي حسك با كتشرين ميشو يمي قوم لا يشقى بهم جليسهم بالله ودول عند الله فريستانا أنا خسارين dadka ilaahay xuso hadaad ka agdhawaato masaajidda ka agdhawaato meelaha diinta lagu dhigaya ka agdhawaato meelaha ilaahay lagu xusayo ka agdhawaatid ilaahay wuxuu tilmaamayaa sa xadiidka nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qawmun laa yashqaa bihim jaliisu min alqurs dul cidda la fadhiisata saalixa cidda la fadhiisata laguma khasaaro إلهي وعلي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما أحبتي في الله ورقوا بنا وحيه إلهي حسيس inuu nolosheedna iyo ka mid noqdo ilaahay xuskiisa waa taqaanina erayada markay tahay alfaada carabka laga yidhaahdo qalbigana laga xasuusto macnaheeda in badanoo ka mida waa taqaani subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah qur-aankoo la akhriyo iyo wixii la mida waxyaabaha ilaahay lagu xusa waa taqaan waxaa kaloo ilaahay lagu xusaa inaad dadka u sheegtid ilaahay bartid oo xustid si ay ilaahay u xusaan inaad diin dad bartid dacwadad ugu yeedhi waa ilaahay baa dadka baraysaa u xusaysaa ilaahay baa dadka jeclaysiinaysa المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا إلهي وحولي حولها عرورتا يوحني وأنا لشأ الدنيا دلال كذا يوحن تيدا لكن كوحا هرية صالحة الباقيات الصالحات مفسرين توحي كل شيء غير رياضة لنشاق نيني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يوحي لما نيني كواسا إله اكتيس خير بدن وخير أملا أيها الأحبة حنكسو كوبينا إلهي حسكي سيئنا كغا مشغول أدون كان يرئي فاني غير دمانيا استغفارتا أن بتصنو بريادة إلهي سبحانه وتعالى أن بتصنو وردقا أن بتصنو نولوش أنو دنين إلهي كحسنو markaad xalaasha raadinayso ilaahay awaamirtiisaad xusaysa markaad xaaraanta ka dheeraanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala nawaahidiisaad xusaysa markaad salaadaha iyo cibaadaadka iyo waxa kala samaynayso ilaahay baad xusaysa makhluuqaadka ilaahay markaad ka fakaraysa iyo sancada alle iyo siduu wax u abuuray iyo weynidiisa kuu muuqanayso ilaahay baad xusaysa subxaanahu wa tacaala noloshoo dhan waa inay inoo noqotaa ilaahay xuskiisa inaynu baranno درسكيغو marka wuxuu ku kooban yahay ilaahay agteena ha ku weynaado imka waxa laga
yaabaa dadka agtiisa inay ku weyn tahay sida xoolo loo helo dadkuna inay u arkaan qofka xoolo badan soo helay qof guulaystay adduun buu soo ururiyey dadku inay u arkaan qof guulaystay qofka siyaasiga noqda ama power helay ama wealth helay ama wax la mida helay war waxaasi waa imtixaanaad kororsatay aakhirunba su-aalaha isku badisa su-aalaha lagu weydiinaya aakhiro ayubaad sii tiro badisa markaad xoolo badan iyo power iyo inta raadiso kuwa haddaad iska daysana su-aalahaad iska yaraysay aakhiro waxa lagu weydiinayo ayuunbaad yaraysa xisaabtaadu baad fududaysa laakiin adduun iyo aakhiraba waxaa wax ku taraya inuu ilaahay agteenna ku weynaado qalbigeenna ku weynaado nolosheenna ku weynaado gurigeenna ku weynaado tijaaradeenna ku weynaado wax kastoo aynu qabanayno inuu ilaahay ka dhex aragno markaasaynu noqonaynaa addoomihii dhabta ahaa ilaahay raalli ahaanshiyihiisu inuu wax kasta inagala weynaado ilaahay inuu ina sheego aynu agtiisa magac iyo maamuus ku yeelana inay makhluuqaadka inalaga weynaato dadku waxyaabo badan waxa laga yaabaa inuu ka xishoodo waayo dadkaa ku arkaya ka waran hadduu ilaahay ku arkayo haybatu lkhalq mise haybatu llahi subxaanahu watacaala keeba kula weyn inaad ilaahay agtiisa ka ceebowdo iyo bini aadam agtii inaad ku ceebowdo idan noloshoo dhami marka ilaahay kuu muuqdo way fududaanaysa waana yaraanaysa adduunkoo dhami macno badan kula yeelan maayo markaad ilaahay garaato saa daraaddeed baa kuwii ilaahay si dhaba u gartay saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam naftooday siisanayeen oo way u dagaalamayeen oo way u dhimanayeen maalkooday siisanayeen oo way bixinayeen abubakar baa la ammaanaya abubakar maxaa lagu ammaanaya waxaa lagu ammaanaya ilaahay baa wax walba kala weynaa nintaa jiro xoolo laba goor buu xoolihiisa oo dhan ka baxay wuxuu haystoo dhan intuu bixiyey ayuu dib zero uga bilaabay haddana wuxuu haystoo dhan buu mar kale bixiyo dib zero uga bilaabay macnaheedu waa maxay adduunkan uu ururinayo waxa kala weyn ilaahay subxaana watacaala ilaahay inuu raalli geliyo oo ilaahay agtiisa dhigtaaba uga weyn inuu adduunkan yidhaahdo daaro badan baa dhisay ama ka badan baa dhisay idan hadduu ilaahay ugu weyn yahayna waxa kaloo dhammi way yaraanayaan marka waxa kaloo dhammi makhluuqaad bay noqonayaan haddii ilaahay inala yaraadana ama aynu ilowno ama uu qalbigeenna ka baxana adduunka iyo bini aadamka iyo khalqiga inala weynaanaya noloshoo dhan baa cidhiidhi galaysa marka ilaahay xuskiisa badsada sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilah